maalin ramadaan baan maraynaa rasuulka ama ilaah asoo sii tilmaamaya ayuu yidhi axad adinka idinka mid ah haddii maalin uu sooman yahay uu soon u sugnaaday rafaf iyo fusuuq yuusan la imaanin riwaayad kale sakhbi yuusan ku darin buuq inuu suuqa ku buuqo inuu qayliyo rafaf afxumo jimaac wixii keeni karaa fisqi taaca ka bax diindiidnimo yuusan la imaanin waa axad hadduu maalin sooman yahay rafaf iyo fusuuq iyo suqbi intaba ha iska ilaaliyo war mar allaala markaad soomantahay suuqa aad joogta isxakameen dhibaataa dhici karta waa lagu maagi karaa mashaakil baa imaanaya akhlaaq lahow soonku waa madarasad laga soo baxo waa jaamacad laga soo baxo sababtu maxay tahay hadigii is-ilaaliyey yaa laga yaabaa in lagu maago oo dushaada la yimaado fain saabahu axad haddii axad caayo ama uu la dagaalamo buu dhahay nebiga hee maxaa la samaynayaa waa ku caayey waad sooman tahay ama wuu kula dagaalamay kitaabka maad u dhiganaysaa waa maya islaanta ma dembiisha adeegay kuwaday dhiganaysaa waa maya falyaqul inii saa'im ani waa soomanahay dhe ma ujeeda akhlaaqda uu dadka baraayo aadaabta soonka uu dadka baraayo inay tahay jaamacad laga soo baxo madaras laga soo qalin jabiyo yuu soonku tilmaamayaa sidaa darteed buu rasuulku yidhi haddii axad caayo ama uu la dagaalamo falyaqul ini imru'u saa'im ani shaksi soomanaan ahay walaalow idaa haya caayin kaama itaal yari igamana itaal badnid igama xoog badnid laakiin ani soon baa i xakamaynaya ilaahay buu afkayga u xihan yahay subxaana wa tacaala ilaahay ayuu afkayga u xihan yahay aniga oo طacaam iyo sharaab iyo wax lacaba ka soomay dhoocil xun caydeeda ku afuri maayo anigoo ka soomay wax walbo mtaqaanaa xalaal ahaa qof xuno i caayey aniga ku afuri maayo walaa idaa walaal faraha iga qaad ini imru'u saa'im ka dulqaadka ka weyn muxuu yahay walaalayaal dulqaadka weyn ee axadka waxa ka weyn ee uu heli lahaa waa soonkuu ka bartay soonkaa dadka xakameeya soonkaa dadka aadaab u yeela soonkaa dadka tarbiyeeya soonkaa dadka qiimo iyo wanaag u sameeya haddii axadku caayo ama uu kula dagaalamo dheh ani waa soomanayo walaal war aniga ilaahay ayaa mtaqaanaa afkaygu u xihan yahay war aniga soonkaa aadaab i baray oo edab i baray oo sida dadka loo caayo iga reebay inaan dagaalamo soonkaa ii diidan wiqaaya soonku waa wiqaayo soonku waa gaashaan soonku waa junne intaasoo dhan buu kaa celinayaa rasuulka intaa wuxuu raacsiiyey waladii nafsii macbuudka nafsadayda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye la khuluufu fami saa'imi saa'imka afkiisa karka ka soo baxa iyo urka ilaan qofka markay baahida ka badato mar uu wax badan aamuso hadduu hurda ka soo kaco waa taqayurmaa afkiisa ummaddu wax ay necab yihiin waayo lama jecla inta badan karka afkiisa ka soo baxaya aطyab cinda allahi min riixi miski subxaana wa tacaala riixda udgoon ee miskiga lagu magacaabo waxaa ka udgoon badan karka afkaaga ka soo baxaya kawar waxyaabaha kale urkii afkaaga ka soo baxa alla wuxuu kugu ballan qaaday oo mtaqaana kugu abaalmariyey riixda miskiga inay ka udug badato soonkaagii ka waran cibaadadaadii xagguu ku jiraa akhlaaqdaadii aaway kulli min baabi awlaa saa darteed baa qofka sooman waxa afkiisa ka soo baxaya alla agtiisa ay uga udgoon badan tahay riixda miskiga ah lisaa'imi farxataan ninka saa'imkaa laba farxadood buu leeyahay laba mar ayuu farxaa marka koowaad waa marka la afurayo oo cuntadii xaaraanta ka ahayd oo loo diiday haraadkii haayey baahidii baa u fasaxantay waa quruub shamsi marka la gaaro marka cadceeddu ay dhacdo mu'adinka salaada maqribka uu aadaamayo raashinkii waa u furmay ma biyo la cabe iyo soor la cuno ku farxayaa maya xikmad kale ku jirta muxuu ku farxayaa waayahe wuxuu ku farxayaa waajibkii ilaahiga ahaa ee uu gutay subxaana wa tacaala wuxuu ku farxayaa amarkii allah uu fuliyey baaha baa la yidhi waa baahday gaajo ku sugnoo baa la yidhi waa ku sugnaaday xaaskaaga dhinacaaga jeefta ha u dhowaan baa la yidhi nahaar ramadaan waa fuliyey waktigii waa dhammaado wixii laga diiday oo dhan ilaahay waa u fasaxay ajirna waa helay subxaana wa tacaala agtiisa taasuu ku farxayaa ee sambuus la cuno ku farxi maayo raashin la cuno ku farxi maayo beriis la cuno ku farxi maayo ilan 11 bilood buu cunaayey 11 bilood yuu cunitaan iyo cabitaan ku jiray laakiin farxadda meesha ku jirta waa farxad cajaa'ib leh kii aan soomin ma soome asoo meesha joogaa maantao dhan waa cunaayey wuu cabaayey xataa qiimo darada dadaa wax badan cuninoo qaad iyo sigaar un cabaa iyo koob shaah ah
xataa hadduu wax fiican cuni lahaa, xataa haddii uu raashin wanaagsan cuni lahaa, waa qaad iyo sigaar iyo koob shaah ah oo birihiisa xataa aan caddays ahayn. saa darteed maanta o dhan oo meesha fadhiyey, meeshaasuu joogay, amarkii ilaahay waa diiday, shayطaan buu raacay, soonkii ma soomin. qofkii kala soomayna wax dhibaatoo gaaray ma laha, asagana wax u siyaaday ma laha, kan ajir buuba helayba. saasuu ku farxaya. waa farxadda koobaad. farxadda labaad cinda liqaa rabbi, waa markuu rabbi hortaagan yahay subxaana wa tacaala. boqorkuu shaqada u qabtay buu hortaagan yahay. muxuu sugayaa? mujaro. muxuu sugayaa? abaalgud. ninka aan dhahno meel yar noo sameeyo noo dhisa, ma dukaanka waxaad noogu samaysaa naqshad, mar allaala markuu dhamayo ku hortaagan yahay wuu farxayaa. maxaa la siinayaa? 10 kun ama 15 kun ilaa 20 gaarsii. suu u farxayo kaalay arag. ka waran qofka rabbulciza hortaagan maalintaa subxaana wa tacaala. war sawirta walaalayaal, ilaahay baad hortaagan tahay, abaal buu rabaa inuu ku siiyo subxaana wa tacaala, inuu kuu abaalguduu rabaa ilaahay subxaana wa tacaala. wuxuu rabaa in waxii aad qabatay abaalkeeda uu ku siiyo. lisaa'imi farxataan, 2 mar buu farxayaa. waa marka uu ilaahay la kulmo subxaana wa tacaala oo ajirkiisa la siinaayo, iyo marka uu afuraya. labada xaaladba. afurka waxaa lagu fasiraa oo kale maalinta ciidda oo soonku dhammaado. 30kii buu dhameeyey, markaasuu ciid u dareerayaa. ilaahay baa ku hanuuniyey. xaaladaasay noqotaba, ninka saa'imkaa maalinta uu ilaahay hortaagan yahay abaalgud buu leeyahay. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, jannada waxaa ku taala albaab lagu magacaabo rayaan. albaabkii dheregsanaanta, waa albaabkii oon la'aanta, waa cukanaanta. waxaa ka gala saa'imiin keliya. inta saa'imiin ahoo soonta albaabkaabay ka galaan buu dhahay nebiga. waxaa loo odhanayaa maalinta qiyaamo, ayna asaa'imuun, ayna asaa'imuun. saasaa loo wada fadhiyaa makhluuqaadkii oo dhan. aaway saa'imiintii? war aaway dadkii soomaayey? ayna asaa'imuun? saa'imiintii aaway? way soo istaagayaan. in allaala intii saa'imiin ahayd dadka way ka soo dhex baxayaan. wasaa'imiina wاsaa'imaat, wiilasha soonka badan iyo gabdhaha soonka badan. wiilashii soonka badnaa aaway? gabdhihii soonka badnaa aaway? ka soo dhex baxa ummadda. waxay ka gelayaan albaabka rayaan. albaabka rayaan waa kii soonka, waa kii dharagsanaanta, waa kii haraad la'aanta. in badan baad soonteenood haraadeene, haraad waa idin dhammaaday galaa la leeyahay. ninka ugu dambeeya markuu galo uqliq, waa la xirayaa buu dhahay nebiga sal اlه alيه wasalam. waa ninka ugu dambeeya saa'im ah. intuu bannaan taaganya la xiri maayo. maalintuu saa ugu tallaabsado albaabkaa la xiraa. axad kale oo ka gelayaa ma jiro. ma soome bannaankuu taagan yahay. bannaankuu taagan yahay. ma soomte bannaankay taagan tahayba. soon marka la dhaho gaas ba igu kacaysaba, wadnaha layga qabtaa. saan waayo xaaladda walaalayaal. cibaadada haddaan jecelnahay, cibaadada haddaan rabna inaan si fiican u xoojino, waa fulin karnaa. inta badan ramadaanka su-aalaha dadka ay weydiiyaan culimmada maxaa ka mid ah, soom baa soo dhawe ma soomi kari, soom baa soo dhawe waxaan leeyahay sokor, soom baa soo dhawe dhiigkor baan qabaa. bal soomba intaasuu ilaahay kugu caafiya subxaana wa tacaala. inkastoo axadka mariidkaasaan tilmaami doona la cafiyey, haddana haddaad kari weyso waa mawduuc kale. soonkiiyo 7 beri ka dhiman buu leeyahay ma soomi kari, cudur baan qabaa. bal galba marka hore, bilow bal marka hore, soomba oo soonkii niyeysa bal, intaasuu ilaahay kugu caafiyo. axaadiis walow la daciifiyo waxay tilmaamayaan suumuu tasixu, sooma waad caafimaadaysaane. xaqiiqda marka la firiyo waa caafimaad. soonka caafimaad buu leeyahay. iska daa intaan ukhrawi iyo aakhiro la tegin, adduunkaad ku caafimaadaysaa. 11 bilood buu mashiinkaagu shaqaynayey. wuu nasanayaa, waa la nasinayaa. ilaahay xikmadaha uu cibaadada u jidaynaya laftigeeda khayr iyo wanaag bay tahay. khayr iyo cizi iyo karaamaa laga helaa. wax walba oo cibaado ah ummadda caafimaad baa ugu jira.